ان فرقده waxaan aadaynaa bariga dhexe waxa la yiraahdaa xalkiisu waa bariga dhexe marba hadaa maqashid waa bariga dhexe waxa isku ma toosno ceeb Allah asdura hadaa maqashid ceeb ma asdura leer marka nimankii Iran waxay leeyihiin anagu gantaaleena waxaan u jeedinay dhulka Carabta qaliijka hadii karbash anaga nagu la soo dayo anagu Mareykan iyo dadkaas kale aan dagaalka naga dhaxeeyo dagaalaba naga dhaxeeyo laakiin qolooyinkii wax dirdiray aan isku kan diray waa Carabi taagin Qatar iyo Sacuudiga iyo Suuriya iyo nimanka Bahrain iyo dhamaan maxal dhahaa imaaraadka Carabta dhaman waa ku jeedinay dhehen marka lama nasan doono wala wada guba waxay kula tahay marka baashin halkaas gaar horta nimanka Carabta markii warka uu soo baxay habeenkii xalab meena seexanin telefoonka madaxweynaha dalka Mareykanka Trump muusu kala joogsanay waxay leeyihiin xal hal lagu dhameeyo bahashi hal la qaboojiyo hal joojiyay leeyihiin arintu faray ka baxday waxa isugu yimid shir madaxyaweynta iyo waliba xisbiga jamhuuriga iyo rag kale la taliyaasha u ahaa taladu ay ka goodo dalka Mareykanka isugu yimid dad fara badan oo siyaasiyiin oo macaqaar European yihiin ba ka qayb galay qaar waxay taagan yihiin adeerow anaga waxa naga ma gelin ba yahuud waxa naga ma gelin Mareykanku dagaal kuma jiro waxaanu ku dooranay Trump inaad dunida waxyaabaha hadda maanta ka jira dagaalada ka jira ee hadda koor ay inaad xaliso dib aad uga soo baxdo laakiin dagaalka inaad dib u huriso anagu kuma na talagelin ba anagu haddaan Mareykan nahay dagaalka diyaar uma nihin Iran inta way ka awood badan tahay marka barnaamijka haduu bilowdana nuclearka iyo hubka culus baa loo soo adeegsanaya adeero barnaamijka jooji baa lagu yiri muslim gaal isku bedel arintan wax weey meel kharaab gaaraysa marka arinta markii lagu yiri Trump wuu laba-labaynaya wali go'aan muusa qaadan Trump waa nin adaga waxa uu xiriye daro wuxuu leeyahay hal gale Trump muusa qaadan laakiin diyaaradihii wax duqeyn jiray iyo kuwii wax bambeeyay iyo kuwii waaweyn dhamaan waa loo soo dhaweeyay maxaan ku dhahay DB ku soo ogol yahay diyaaradda soo rideen oo F-35 dhahay way soo dhaweeyeen waxayna doonayaan hadii amar sugayaal weeyo maxaan ku dhahay ciidamada Mareykanka hadii arintaas u dhacdana khariijko idil iyo wadamada wala sila gumanaya hadda waxaan arkay Reuters iyo Washington Post oo qoraysa Iran meesha la yiraahdo Israel waxa weeyaan 12 bari oo kale ama 10 bari oo kale haday dagaalka sii wado maalin 12 kuma dari karto waa meesha ay hub iyo dhaqaale iyo wax walba ka taagan tahay maalin 12 ma sii wadi kartaa hadii kale waxa weeye way burburaysaa meesha ay ka baxaysaa marka inuu Mareykanka gali mooyaan dagaalka horta dagaal sii socon doono bariga dhexe kama sii socon doono haddana waxay u muuqataa wada hadal dheer iyo wixii badan kadib go'aan in ka soo bixin in wada hadallo lagu dayo Iran in lagu حبجوجين marka hore la sameeyo marka arintaas socota laakiin waxa weeyaan nimankii yahuud la oran jiray caasimadooda Tel Aviv oo magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya laba jeer bay ku soo laban laan weynankeeda gari ahaan ma dhulka la dhigay dadkii dhulka hoostiisa la galiyay waxa weeyaan furaasho yar yar oo mulxeef oo la dul fadhiyo ayay wataan kolba qayba seexan bal adigu 2 milyan oo dad oo dhulka hoostiisa la galiyay aduu kala seex kuwa kalena Jordan iyo waxay aadeen oo qaxeen dhulkaas wadamada dariska u qaxeen marka xaaladu way cakiran tahay meel xun bay gooriyo maraysaa dagaalkaas haduu bilowdana khatar buu dunida soo maraya farqadu waa mahadsan tahay oo arki doona wax ka soo kordho deegaanadaasi waxaan aadaynaa la sacanood 14 bishan waxa loo kubsaday gabdho Soomaaliyeed oo walaalo ah waxaana kubsaday 24 nin hal nin oo baxsaday 23 nin way xiran yihiin shaqaaqa ka dhacday magaalada la sacanood dad baa lagu dilay banaanbaxyo dhacay foodo badan jirtay marka dambe ciidanka militariga magaalada soo galay waxay sheegeen inay ka faa'iideysanayaan Somaliland iyo nimanka leeyahay Puntland oo shaqaaqada abuuray oo gabdhaha sawirantooda soo helay oo wiilasha sawirantooda soo helay oo warbaahinta la wadaagay marka waxay yiraahdeen qas badan ka jiro magaalada waa la soo galay Somaliland waxay tiraahday intay qaskan ku jiraan anoo ka faa'iideyna magaalada la sacanood galina marka maxay kula tahay arrimahaas oo dhan dib ama iska dhacay sida looga faa'iideysanaya horta waxaani waa wax loogu talagalo labada maamul waliba Somaliland kaliya ma Puntland xataa qayb ka tahay way sheegan labada maamul dhinacyo naga xigay barnaamijka in la buunbuuniyo oo hawada la geeyo oo dhaqaale lagu bixiyo oo waliba laba beelood ay isu dagaalamaan ku dagaalamayaan yey qoladan dhaqaale ugu bixinayaan beelaha hadda gabdha laga kufsaday wiil kalena waa laga dilay oo gabadha familkiisa ahayd maxaa la jiidan way ka soo baxeen oo magaalada la sacaan soo galeen marka khilaafka intaas laga rabay khilaafka intaas laga rabay marka waxay doonayaan labadan beelood ee walaalaha in intii la isku diro ay dagaal isu qaataan kadibna Somaliland ay ka faa'iideyso ay soo gasho oo leeyahay marka hore anagu ma heshiinayna kale soo gal in la dhaho laakiin anagu waxaan halkan baaq uga jeedinayaa maamulka reer Khaatumo waxaan leeyahay intaad ka dhax saartaan bahasha qabiilka ka dhax saartaan wiilasha iyo gabdhaha maxkamad si cadaalad u geeya
heerka gabdhuhu ay ka dhasheen iyo wiilka la dilayna way qancayaan kuwii kale ee magaranaysaa ciidan ahaa ee kay wiilashu ka dhasheen way qancayaan marka waxay shariicada islaamku ay ka goyso wiilasha iyo gabdhuhuba hal la mariyo gabdhaha cadaaladda ha loo sameeyo haddii kale waxa weeyaan Somaliland oo ciidan aad u fara badan tababaratay oo lacag iyo dhaqaale ku bixinayso oo meeshan la taagan tababarkan oo SSB ba hadda dowlad tababar iyo garxadiisa oo hadda dowlad nimanka ayaa idinka faa'iideysani waxay noqonaysaa marka 2000 ee ruux ee halka ku dhintay iyo kuwii dhowrka kuna halka ku dhaawacmay iyo kuwii ku barakacay wali dowlad deegaanka Soomaalida waagi kuwii meesha ka barakacay wali dowlad deegaanka Soomaalida iyo jijigi wax ka bartaan dhalinyaradooda iyo ciyaalkooda dib u meynadaan yani waa deegaankoodii waa dad walaalahoodii la joogaan waxba kama qasana alashaan laakiin waxaan ka wadaa culayska ka soo raacay halkaas marka gabdhaha cadaalad waa inay helaan labada gabdhood waa inay cadaalad helaan wiilasha wax kufsaday qabiilka ay ka dhasheenna haddii nin wax kufsaday waxa weeyaan cadaaladda la marin ha u heelinina daay qabiil ma aha waa kala qabiil wiilashu qabiilku doorba ahaado wiilasha cadaaladda la marin waxa looga dambeeyo maamulka ha looga dambeeyo maxkamadaha looga dambeeyo yaan la siyaasadeyn yaan la siyaasadeyn gabdhahan xuquuqda iyo cadaaladda ay leeyihiin ha la mariyo jiidaha horena yaan laga soo bixina ha lagu ekaado jiidaha hore oo ciidankan iyo dadkan ka soo baxay iyo saraakiisha kuwa ka soo baxayna adeer waxa kuwa ka waaweyn oo maxaan ku dhahay wiilal iyo gabdho leh ya dagaalka ku weydeen aminkan maxaan ku dhahay gabdho hadii soo burto waa faa'iido hadii soo furso kuwa kale nool baa idinka kufsan kuwa kale nool baa idinka dil marka waxa weeyaan dhibaatadu inta ay hadda xajmigeeda la egtahay ha lagu koobo dhib ka weyn yuusan dhicin فرقده وما سنتهي وحك سكر لا سعناد إيه قلاف كجرو إيه ديار جرو قدقال سومالان إلا مجال لا سعناد لورنا عم سدح جاي كسو قلنا كده من مجال ده وقفصنا أنت هو أنت اسكو مش قرصين هذا أبو بوننا يعني كوفسي هالكاس كدعي لمشي سدح ذقف دقال كوبنا حالك كدعي وحصلنا هذا وقد قاضي الرئيس سومالان وين كفى إذا سنة وحرب وين استقاطهم سيد كسو قلنا لكن رئيس السياسة لو جب هي إن كفى إذا استان أو أي مركزي مدام عدد من التريق مجال السوقري أمن جن إلى ورجن أي لو بهنا كورتجان shalay waxaa hada shay haweeneydii magaalada Laascaanood ku xirnaan jirtay ee u dhalatay beesha hawl jaclo waxayna si toos u sheegtay in Muuse Biixi Cabdi iyo ninkii la yiraahdo Maxamed iyo maamulkiisa inay ku fashileen waliba Muuse u saxiixay in arrintii Itoobiya waxay tiraahday dhulka in Soomaaliland waa la qaadanaya waxay tiraahday dekad lacala laga dhax sameeyo in Djibouti iyo Berbera dhexdeeda hadii dekada Seylac ee loohay laga sameeyo Itoobiya ay maamulato in Berberana cid wax kala soo dagaysa male meesha la yiraahdo in Djibouti cid wax kala soo dagaysa male laba maamulo Soomaaliyeed way sidoo ku dhici kartaa ay tiri in Itoobiya halkan lagu siiyo marka aqligaas ma garan waayeen in maxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Cirri Muuse Biixi Fargodo wallahi horta ragani aqoon uma yara midna safiir buu badan soo ah midna ciidan iyo siyaasadda ku midna ciidan iyo siyaasadda ku soo waxay laakiin markii tawfiiq la'aan ay ku hayso meel daran baa laga tuur markii tawfiiq la'aan ku hayso meel daran baa laga tuur hadda gabadhaas arrinta ka hadlaysa waa runto meeshii bariiskii dhadhamada ka soo garahayay waa dowlad deegaanka Soomaalida ayihii xoolaha ilaa awal horeba xoolo fiican iyagu ma lahayn xoolaha laga dhoofinay raashinka laga soo degayay way haddii marka qoladan Itoobiyaanku ay dekan meesha ka helaan oo Oromadii meesha degto Djibouti ka soo gurayaan Djibouti way ka soo guray halka ma la suubimaan waaga dambe xirme mayo xidhiga wax kaaga daranba waaga dambe hadda Somaliland imsay sheegtaan inta milyan 4 milyan bay sheegtaan Soomaa 4 milyan 3 milyan sheegtaan laakiin dadku aad u yar yihiin may 4 milyan ma 5 milyan ba ka soo qaadba dekada lafteeda 5 milyan oo shaqaale la geyn kuwa kale agaga deganna 20 milyan bay Itoobiya hadii doonto ka dhig maxaa meesha ku yaala marka adiga dhulkii laga qaaday dadkii waa laga qaatay ganacsiga laga qaaday badii laga wareeg kaniisadii iyo maxaan ku dhahay bahalkii laga baqtiga oo ilba lagu dul furo maxaan ku dhahay khansiirka lagu dhaxunaya meeshii wax allaale wax ku yaala ma jirto kalaabi iyo baqtiga laga furaa ma wax ku yaala ma jirtaba marka waxa weeyaan aniga waxaan leeyahay war gabadha intay garatay ma garan weydin maanta waxay tiri cunuga 2 jirka ah ama cunuga waxay tiri dugsiga hoose dhigtay 4 jirka 5 jirka ayaa garanayay tiri in Itoobiya in Seylac lagu hayo inta la siiyo Berbera iyo dekada Dooral Djibouti inay shaqeyneen cunug yarka garanay tiri marka waxay tiri arrintaas waa ceeb suuragalna ma aha ayadoo hadlayso hadalkii wado oo Itoobiya Abiy Ahmed noo soo karar qaata dhayso ala soo dul istaaga waxa la hadalka joojiso markaas ay wax yar noo haray nasuga maamada cabaar ay taagnanaysa hadalka xataa muuqaalka soo deeyay marka waa muuqaal caadi ah maamada ka shaqeynayso sirdoonka ay imaanaysa sirdoonka lixsan ay imaado maamadu waa in aamusta hal yar marka Itoobiya maxay u hadlay waay marka maxay kula taabal arrintaas oo la yaab ma horta meesha waa meel ay Itoobiya haysato hadda dowlad deegaanka ma leeyahay way haysataa dowlad deegaanku waa xorba halkaana ka daran meesha ay bahashu dhigatay ee salka dhigatay ee wixiga dhigatay waa qoladan toos loo wareegto ha walaalaha naga ay leeyihiin waa ka dhaba walaalaha naga inay leeyihiin Itoobiya waa walaalaha naga waa ka dhaba Soomaaliya ka hortaagan mar hore galnaa ha qalbiga iyo meel walbaba waxa weeyaan Itoobiya bay ka yihiin
weliba dadka maamulkaan la hadlaya laakiin dad yar oo aan badnayn oo qabiil ku taageeraya mooyaane shacab weynaha Somaliland way wada garanayaan islaanta hadda bilahan kugu dhashay telefishinka taagan ee muuqaalka laga duubayo ee intay yimaadeen yiri joojiyayna ka hadal Ethiopia bal maalinkay dekada tagtay ee berbera tagtay meelaha qabsatana maxaad u malaynaysaa Ethiopia way dhex joogtaa aad u dhex joogtaa ha marka caadi maalinkaasna waxa weeyaan cid ka hadli ma jirto waa way si qasmeeno waa xaalad halis ah farqadu ma santaa wax soo arki doona barnaamijka Garay Meel Fugaarsiye